bilowga filimka baala waaweyn oo hawada sare ka yimid ayaa baabi'ay dhammaan magaalooyinkii bini'aadamka waxaana baaladaasi ka yimaadeen dhanka badda Baasifiga dhammaan hogaamiyaashii bini'aadamkana waxay diyaar u yihiin inay isku difaacaan baaladani soo baxayna waxaa ugu weynaa baal lagu magacaabo Keijo waxaana baalkana burburiyay dhammaan magaalada dad badan waa uu soo afjaray isagoo dilay laakiin ugu dambeyntii waxaa soo afjaray oo dilay ciidamadii militariga balse baala kale ayaa soo baxay waxayna baaladani qarka u saarnaayeen inay la wareegaan dhammaan meeraha dhulka weliba muddo gaaban gudaheeda bini'aadamkana waxay ka warqabeen inay iyaga sidaasi ku dhammaan doonaan iyadoo baaladani ay la wareegi doonaan meeraha dhulka hadda dhammaan dalalka adduunka way midoobeen kadib markii ay bini'aadamka fahmeen khatarta ay leeyihiin baaladani waxayna ku qasbeen inay hindisaan mashiin ka hortaga baaladani iyaga markasta soo weerara waxaana bini'aadamka bilaabay barnaamij isagoo bilaabay inuu abuuro robot aad u weyn robotkan hal qof ma xakameyn karo waxayna bedeleen barnaamijkii robotka iyagoo robotkii u sameeyay laba qof oo xakamaysa hadda laba kabtan ayaa maamuli doona robotkani waxaana looga baahan yahay labada qof ee maamuli doona robotkani inay u maamulaan sida ugu wanaagsan bini'aadamkiina si buuxda ayay ugu liibaaneen samaynta robotkani baal kasta oo u soo dhawaada meeraha dhulkana waa loo isticmaali jiray robotkan isagoo ciribtiri jiray bini'aadamkiina baaladii waxay la noqdeen kuwo iska caadi ah iyagoo markasta baabi'in jiray waqtigana si tartiib ayuu isku jaray bini'aadamkana wax uu rumaysnaa inuu badda ka soo bixi doono baal aad u weyn maalmaha ka mid ah waxay ogaadeen in baalkii uu ka soo baxay dhanka badda waxaana midaasi dheereed in iyaga horey u ogaayeen inuu baalkani khatar badan yahay intaas kadib waxaana la baryaa laba wiil oo mataano ah kuwaasoo lagu kala magacaabay Yancy iyo Riley hadda labadaani walaalo waxay maamuli jireen robotka wayna soo dhaqaajeen labadii walaalo iyagoo markaan ku fadhiistay robotkii waxayna ayeen maskaxda robotka waxayna bilaabeen inay markaan isagaajaan mataanihii si ay markaan u kiciyaan robotka oo nagu hortagaan baalkani ka soo galay badda dhammaantoodii waxaa markaan lagu rakibay robotkii waxayna markaan u diyaarsan inay robotkii maamulaan systemkoodina waa la hagaajiyay waxayna markaan u diyaarsan inay howlgalaan intaa kadibna robotkoodii waa uu shaqeeyay waxaana bilaabay inuu robotkoodii dhaqaajiyo waxaana robotkoodii markaan galayaa badda soo markaan ugu soo takhaluso bahalkaasi laakiin robotkii marka badda uu soo galayna waxaan ogaanaynaa inay badda ku xayiran tahay doontaana waxa haystay bahalkii isla markiiba robotkii waxaa markaana soo weeraray robotkii baalkiina waxay bilaabeen markaana dagaalamaan laakiin robotkii wuxuu markaana baalkii u adeegsanaya korintidiisa isagoo markaas baalkii ku dhawaaday inuu soo afjaro laakiin baalkaana muusre mid sidaasi ku haraya waxaana marka la soo weeraraya bahalkii isagoo markaas ku siganay inuu burburiyo dhammaan robotkii waxaana bilaabeen mataani inay markaan halis galaan maadaama markaan baalkan u soo weeraray si ba'an ugu dambeyntiin labadii mataal markaan xaaladooda iga adkaatay baalkiina si isdabajoog ay u soo weeraray labadii walaal mid ka mid ahna waxaa markaan la baxaya bahalkii laakiin mataankii Riley ayaa markaana wax uu soo afjarayaa bahalkii robotkiina markaan dhulka ayuu ku dhacay maadaama markaan maamulkiisa oo faraha ka baxay wiilkii Rileyna waxaa markaan kasoo baxayaa bahalkii isagoo markaasi tacbaan waa uuna miir daboolmay intaa kadibna Jason ayaa kasoo wareegatay dhammaan madaxdii dunidana waxay markaan ku andacoonayaan inaysan markaan iyaga ka guuleysan karin baaladaasi maxaa yeelay awal robotkan waxay u sameeyeen inay baaladaasi u hortagaan cabaarna way ugu nasteen waxaana markaan madaxdii sheegeen in bahal kale oo markaan yimid meeraha dhulka kaasoo doonaya sida Keijo oo kale inuu dunida u baabi'iyo hadda madaxdii hogaamiyaasha adduunkana waxay go'aansadeen inay gebi ahaanba joojiyaan barnaamijkani robotkii weyna oo la dagaalamay baalkii Keijona waxay markaan ku wareejiyeen ninkan hogaamiyaha oo lagu magacaabo Marshall waxayna markaan madaxdii u sheegeen ninkii Marshall lahaa inuu la wareego robotkaas uuna geeyo saldhigiisa dhammaan madaxdiina waxay markaan ku dhawaaqeen inaysan barnaamijkan mar kale maalgelin doonin oo aysan lacagtooda ku khasaarin doonin maadaama uu ka xoog badan yahay bahalka ninkan Marshall ahna waxa uu taliyay barnaamijkan soo bandhigay inta kadib ninkii Marshall waxa markaan ku dhawaaqaya in dhammaan ciidamadiisa ay markaan sameeyaan darbigaasna waxa laga sameeyay doonaa dhanka badda Baasifiga si ay markaan ugu soo tilaabeen bahalada waxaa markaan la diyaariyay dhammaan qalabkii waxaana bilaabay inay dib u dayactir ku sameeyaan dhammaan robotkii ninkii Marshall markaan uu soo baxay isagoo markaan u yimid wiilkii Riley ahaa kaasoo isaga iyo walaalkiisa ay maamuli jireen robotkii waxaana markaan uu sheegay inuu markaan isaga qorshihiisa qayb ka yahay laakiin ninkii Riley ayaa midaas diiday isagoo markaas ku yiri aniga inta baalka la dagaalamayna walaalkii ayaan waayay mana doonay inaan aniga nafteeda waayo laakiin ugu dambeyntii ninkii Marshall wax markaan ku qanacinayaa ninkii Riley ahaa inuu isaga raaco oo la fuliyo qorshihiisa ugu dambeyntii ninkii Marshall wax markaan Saudi ninkii Riley isagoo markaas keenay Hong Kong waxaana markaan tusay barnaamijkiisa cusub sida wax u diyaariyay waxaa markaan la diyaariyay robotkii hore mid ka sii weyn kaas isagana aad u awood badnaa waxayna doonayeen inuu robotkan noqdo kii ku dagaalama lahaayeen waxaana ninkii Marshall u sheegay ninkii Riley ahaa inuusan robotkan ahayn kii hore oo kale balse kan uu ka adkaysi badan yahay waxaana halkaan ka socotay shaqo aan caadi ahayn intaa kadib ninkii Riley ayaa ciidamadii Marshall waxay bilaabeen markaan tababar siiyaan oo la dagaalamaan laakiin ninkan Riley waxa waa mid aad u awood badan waxaana bilaabay inuu isdifaaco laakiin markaan waxa garan ka soo galaysa haweeneyda gacanyaro ninkii Marshall lahaa waxaana bilaawday inay weerar ku soo qaado ninkii Riley ahaa laakiin ninkii Riley waa uu isdifaacay isagoo markaas ka dhiciyay haweeneydii waxaana halkaas imaan ninkii Marshall isagoo markaas ku yiri aad buu u fiican yahay digaalkaaga adeeg iyo haweeneydana gacanyarihayga ahna waxaad wadi doontaan robotka
intaa kadibna waxaa markaan la qalaabeynaya Rila iyo haweeneydii waxaana markaan galeen robotki si markaa robotki u dhaqaajiyaan laakiin ninkii Rila wuxuu markaan soo xasuusanaya xasuusii hore isagoo markaan soo xasuusanaya markii walaalkiisa uu dafayay bahalkii sidoo kalena haweeneyda iidan waxay gelaysaa xasuus idoo markaan soo xasuusanaysa waqti ay yareed magaaladii u joogteen waxaa markaan soo weeraraya bahalkiina dhammaan magaalada ayuu baabiyay laakiin shaqaale Marshall mid kamid ah halkaas ugu yimid isagoo markaas badbaadiyay intaa kadibna haweeneyda waxay bilowday in markaan dhoolto samayso idoo markaas isticmaalaysa awoodii robotka dhammaan shaqaale halkaas joogeen aad bay u yaabeen intaa kadibna Rila iyo haweeneydii way soo dhaqaajeen iyagoo markaas wada robotkoodii waxayna bilaabeen in markaan ka hortagaan bahladii soo galay magaalada bahladana markaas waxay ka soo galeen badda Pacifiga waxaana bilaabeen in markaan bahladii la dagaalamaan laakiin bahladana waxay ku aad u awood badan idoo markaas bahal weyn oo bilaabeen kor u qaato iyagana ma aysan garanaynin wixii ay samayn lahaayeen maadaama ay robotkoodii dalawar ka ahayeen wayna ku adkaatay inay baalkan iska fujiyaan laakiin markaan waxay isticmaalayeen gadaal ku xilnaa robotka waxaana bilaabeen inay qarxiyaan bahalkii halkaas ay ugu taqaluseen robotkoodiina waa uu soo dhacay laakiin awoodii robotka ay markaana adeegsadeen idoo markaas ugu dambeyntii si wanaagsan u soo caga dhigay robotkiina halistii waa uu ka badbaaday intaa kadibna waxay markaan kusoo laabanayeen xaruntoodii ninkii Marshall wuxuu markaan dareemay inuu markaan ku guuleysto operationkiisii inkastoo markaan bahlada ay tiri badnaayeen oyna qabsanayeen dhammaan magaalada laakiin ninkii Marshall ayaa markaan wuxuu sheegay ninkii Rila yahaa in bahladan aysan sidaan ku istaagi doonin ayna muhiim tahay markaan isaga qalabkii robotka xitaa xirto si uu markaan u soo baabiyo bahladaasi intaa kadib ninkii Marshall wuxuu markaan soo xiranaya qalabkii robotka wuxuuna bilaabay isaga ciidamadiisa inay markaan soo wadaan robot si ay markaas uga hortagaan bahladan soo buux dhaafiyay dunida intaa kadibna ninkii Marshall iyo ninkii Rila ayaa markaan hal robot soo wada raacay waxayna doonayeen sida ugu macquulsan in markaan baalkan uga hortagaan laakiin baalkan aad buu awood badnaa waxayna bilaabeen markaan baalkii la dagaalamaan laakiin hal mar xitaa iyaga maysan isdhiibin waxayna markaas isticmaalayeen awoodooda maadaama ay wada maamulayeen robotka laakiin baalkan waxa waa mid aad u awood badan kaasoo fara badnaa waxuuna baalkii ku sagan yahay markaan soo afjaro robotkii laakiin iyagana midaas waa ay ka diideen waxayna iyaga diyaar u ahayd inay markaan baalkan soo afjaraan iyagana waxay diyaar u ahayeen wax kasta ku qaadateen inay baalkan soo afjaraan ugu dambeyntii waxay markaan baalka u isticmaalaan aqli iyagoo ugu dambeyntii soo afjaray bahalkiina ugu dambeyntii halkaas ay ku dileen halkaasna waxaa ka kacaya dabaad xoog badan laakiin markii bahalkaasi dileenba bahalo badan ayaa soo weeraray iyagoo ugu yimaaday geesaha bahladii kale ayaa markaan soo weeraray wayna gara waayeen wixii ay samayn lahaayeen maadaama labadooduba ay isticmaalayeen hal robot waxayna markaana meerahooda ugu yimaadeen robotyadii waxayna markaana ku qasbeen inay robotyada kusoo afjaraan bahladani ugu dambeyntii waxay markaana ku guuleysteen in dhammaan bahladii ay markaana ku qarxiyaan meerahooda iyagoo ugu dambeyntii halkaas kusoo afjaray meerihii ay robotyadii joogeen hal robot ma uusan ku herin dhammaan asxaabtii kale midaas aad bay ugu farxeen waxaana ninkii Marshall ninkii Rila u suurta gashay inay markaan kasoo badbaadaan bahladii iyagoo markaan ugu dambeyntii yimid badda Pacifiga waxaana halkaas ku dhamaanay filimkii maanta muuqaalkiina waxa waa mid aad u xiiso badan intaan muuqaalkaan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino.